Assalamu alaykum. Waxay ka baqayaan gaajo ka badan corona daraasad caalami ah ee la sameeyay 3 meelood laba ka mid ah dadka reer Yemen oo ah muwaadiniin inaysan iibsan karin cunto carruurtana waxaa lagu qasbaa in ay dawarsadaan raasin lagu sameeyay qoysas reer Yemen ah ayaa lagu qasbay inay carruurtooda u diraan shaqo ama ay dawarsadaan iyadoo la raacayo walaaca sii kordhida ee ku saabsan qiimaha sare u kicida shidaalka cuntada iyo weliba sicirka iyadoona daraasaad ay dhawaan sameysay guddiga badbaadinta ay xaqiijiyeen in ka badan qoysaska reer Yemen ay ka cabsi qabaan gaajo ka badan waxayna ka baqayaan fayruska corona ee cusub sidaa darteedna carruurta waxay u baxayaan wadooyinka si ay nolol u raadiyaan sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray wargeyska Ingiriiska laga leeyahay ee lagu magacaabo The Graduate talaadadii 18 Agoosto sanadka 2020 daraasadan oo ay ku jiraan in ka badan 150 qoys oo ku kala nool 3 degmo oo ku yaal koonfurta Yemen ayaa lagu ogaaday in 3 meelood 2 meel boqolkiiba 62 dadka la wareystay ay sheegeen inay awoodi karin inay iibsadaan cunno iyo waliba biyo iyo cabaan inta kadibna qiimaha sonkorta iyo saliidda iyo khudradda ayaa kor u kacday ka badan intii horey la iibin jiray boqolkiiba 25 sanadihii hore cabsi gaajo cunto darida ayaa walaaca weyn ee reer Yemen halkaas oo dagaalo dib ugu soo cusboonaadeen oo ay wehliso hoos u dhac ku yimid maalgelinta bini'aadanimo iyo helitaanka ayaa malaayiin qatar gelisay waxaana lagu qiyaasaa in 3.2 milyan oo qof qolkiiba 40 dadweynaha ay hadda wajahayaan cunno yari ba'ani waxaana ku dhawaad 5 sano jir iyo waliba kuwii ka sii yar ay ku silicsan yihiin nafaqo daro dhamaadka sanadkan guddiga badbaadinta ayaa sheegay in raashinka cunno ee waqooyiga Yemen ay horeyba hoos uga dhac kala bar ilaa bishii Abriil ee la soo dhaafay iyo waliba in ku dhawaad 5 milyan oo dheeri ah ay waayi doonaan awood ay ku heli karaan kaalmada cunnada ee bisha November haddii aan la siin lacag dheeri ah daraasadan waxay dib u tusaysaa saameynta xun ee dhaqaalaha COVID-19 ee nolosha kooxaha ku nool Yemen waxa kale oo intaasi raaciyay kuwa sahminta ku muujiya in si loo quudiyo qoysaska lagu qasbay in ay helaan deyn ay bixin karin 19,000 oo kiiska COVID-19 ah oo si rasmi ah loo diiwaan geliyay ilaa hadda waxay u badan tahay in nambarada uga badan yihiin cudurka aan la soo sheegin iyo baaritaan la'aan markas oo ah la taliyaha sare ee dhinaca siyaasadda ee qaabilsan guddiga badbaadinta ayaa sheegay in kororka qiimaha cunnada ay sabab u tahay COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay Yemen maadaama qiyaastii 85% cuntada la soo dhoofinayo wuxuu intaasi raaciyay in qoysaska ay dib u galayaan wareegyada lacag bixinta waxbarashada iyo waliba daryeelka caafimaad si ay u helaan waxa ay cunaan guddiga samata bixinta caalamiga ah wuxuu u baaqay qaramada midoobay inay kordhiso deeqaha bini'aadanimo ay siiso dalka waxayna ugu baaqaysaa Mareykanka boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska inay xoojiyaan taageerada military iyo waliba sirdoonka dhinacyada ku lugta leh iska hor imaadyada